waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da maantana waa hawraartii goroyada loo saariyey ee dabadeed mahmaada noqotay. dhegaystayaal, duurjoogta mahmahaha loo saariyo waxaa iyaduna ka mid ah goroyada oo loo haysta inay tahay shimbiraha ifka ku nool midda ugu weyn. keeda lab waxay soomaalidu ku magacowdaa haldhaa, gorayna waa la yidhaahdaaye. teeda dhadigina waa haldhure ama waa gorayo cawl. waxay leedahay laba adin oo dhuudhuuban iyo cagal laba suul oo qura ka kooban, wax kalena aan lagu ogayn. goor noolba raxan bay u daaqdaa una wada socotaa. ugaarsigeeda soomaalidii hore kama wada sinayn, bulshada badankeeduna hilbaheeda ma cuni jirinoo way ka caaganayd. waxaa waagii ay dhulka ka buuxi jirtay ugaarsan jiray kooxo gaara oo ka mida kuwa la haybsooco, waase lagu caayi jiray, inkastoo qolyaha ku caayaya ay mar walba iyagaas ka tuugi jireen subageeda, kaasoo lagula tacaali jiray cudur ay soomaalida keliyihii taqaano qaras ama dacar ay ku magacowdo. haldhaagu waa goraygee, wuxuu leeyahay laba garab oo aad u qurux badan, midabkooduna madow iyo caddaan uu isugu jiro. baalasha garbahaas ayay soomaalidii hore ka ganacsan jireen. intay urursadaan ayay muddo kadib waxay u safarsan jireen magaalooyinka xeebaha ku yaal ee doonyaha shisheeyuhu ay ku soo xiran jireen. dabadeedna markii carro edeg la geeyo ayaa sida la yidhi waxaa laga samayn jiray barkimaha iyo gogosha kale ee qaaliga ah, dadka ladanina ay ku seexan jireen. baalka goroyadu waa wax fudud, sidaa darteed marka ay iib geysanayaan waxay ku dadaali jireen inay wax badan ka qaataan. miisaanka markii la saaro hadduu fududaado wax quman uma goyn jirin. taana waxaa tix sarbeeban ku xusay qamaan bulxan gabyaagii la odhan jiray. waxaa la yidhi qamaan baa beri gabar guursaday, gabar aad u bilicsanoo qurux loogu roonaaday. ha yeeshee kolkii ay muddo wada dhaqmeen ayuu ku arki waayey wax qiimi ah oo quruxda dhaafsiisan. fudayd u bogi waayey ayuu ku arkay, malahaygana ku nacay. isaga oo gabadhii arrimaha ku saluugsan ayaa dharaartii dambe waxaa u soo hargaray walaalkeedoo sida ay caadadu ahayd yaradoon ah. haddiibase waxaa qamaan ka go'day inuusan gabadhaa wax yarada ka bixin. ha yeeshee ceebaheeda inuu walaalkeed caddaan ugu sheego sariig baa u diiday. kolkaas buu sarbeeb ciirsaday. sida baalka goroyada inay gabadhu u fududdahay ayuu si dahsoon ugu sheegay. wuxuu haddana ku tilmaamay inay la mid tahay faras boosay ah oo inuu baxdow yahay loo filaayey, hase ahaatee markii la shirrabay magaan noqday, dabadeedna laga maarmay. waxaa gabagii qamaan ka mid ahayd baal goroyo waa lagu ogaa inuu bidhaamaayo berbere maalintuu tegay waxaa bi'iyey miisaane, bidkolay ku tahay shaygii fudud beesad lagu waaye, boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacayb. ganacsiga ka sokow baalka goroyada siyaalo kale ayay soomaalidii reer miyiga ahaydi ugu danaysan jirtay. hablaha carafdoonka ah ayaa ku xaragoon jiray, oogada ayay ku quruxsan jireen, waxaana la arki jiray gashaanti uu baalku cududeeda ama madaxeeda ka soo taagan yahay. dhinaca kale dagaalyahanadii soomaalidu markay goobo badan ku guulaystaan, magac dheerna yeeshaan, ayay baalka gorayga madaxa ku xiran jireen. sayid maxamed cabdilla xasan oo dadka xusuusinaya guulihii uu ka soo hooyey gumaysigii ingiriiska goobihii ay isku arkeen, kuwaasoo uu baalka dheer ku gashaday, waa kii gabayadiisa midkood ku lahaa: maandhow laxaadkaan qabaa laacib baan ahaye, maandhow lib baan kala tagaa leexa dirireede, maandhow laqdaba waa ka duuf aniya laalayse, wax dhan baan libaystoo gashaday baal laglaga dheere, aarkuba hadduu soo lalabo laga laleemowye gaashaan, nin lowga u dhigaa waa la aan jirin. meel uu ka soo galay iyo cid ay kaga daydeen garan maayee, dhaqanka soomaalida reer magaalowday waxaa ka mid a biyaha badda oo qarsho ku jira iyo ukunta goroyada inay ka soo lalmiyaan aqaladooda iyo dukaamadooda, iyada oo looga gol leeyahay balaayo xijaab, gaar ahaanna isha dadka iyo qumanyaysiga. wadajirkooda heesaha maanyada loo yaqaan ee ugaarta u gaarka ah ayay goroyaduna mid ku lahaan jirtay.
waa hees iyada tilmaanteeda u badanoo nimanka ugaarsadaa ay ugu luuqayn jireen marka intay awrta u rartaan ay u arhaanoo ay baadigoobkeeda ku jiraan ama intay meel dhow uga muuqato ay sabayaan. badanaa ammaanta ku saabsan waxtarka hilibkeeda iyo subageeda ayaa heestaas loo xambaarin jiray. midhaheedii oo aan hadda wax quman laga haynna waxaa ka mid ahaa fayd laba furmood low lagaa furayey, shansha goray nin dhuuxaa shabshab u orodiyey, hubush hubushta daayo hubka isiiyey, xayoy xeeradaadii xayuubsadayey, waa laba indhoodoo ilaaq dheer oo waa laba lugoodoo lexaad badan. quruxda garbihiisa iyo wuxuu u goyn jiray awgeed soomaalidu haldhaaga ayay weynayn jirtay, gorayo cawshana way yesi jireen. waxaan xusuustaa allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan oo timacadda loo yaqiinay gabay uu tiriyey, kaasoo uu ku muujinayey sida inay wada xorowdaa ay xilligiisii soomaalida uga go'nayd, isaga oo libaax ku tilmaamaya gumaysigii talyaaniga iyo kii ingiriiska ee layska kiciyey. midka kale ee aan weli layska kicinna gorayo cawl ku sheegaya ayuu gabaygaas wuxuu ku soo gebagabeeyey, annagoon gantaaraha dhaca iyo haysan qori gaaban hashaan geedaweynow libaax uga gabboon weynay, inaan gorayo cawl uga tagaa waa wax soo guray. si kastaba ha ahaatee gorayadu waa naflay aad iyo aad u dheeraysa, kolba cidda cayrsatana caga ugu been sheegta. hase ahaatee waxaa lagu xantaa wax nafteeda khiyaama inay ugu daran tahay. waxaa la sheegaa si aanay u arag nabarka ku dhici doona marka ay halista dhab u dareento inay camuudda madaxa gashato. taas markii la iska dhaafase soomaalidu mahmaahda ay gorayada u saarisaa waxay muujinaysaa inay tahay nafley garaadkeedu sarreeyo oo wixii u roon iyo wixii u daran kala taqaan. waxay ku sheekayn jireen maalin maalmaha ka mida ayay gorayo cawli ka soo dul dhacday duurjoog oo idile meel ay isugu timidoo ay cayaar ku tumanayso. markii ay soo muuqatayba waxaa loogu yeeray inay goobta soo gasho oo sacabka iyo jaanta ay ka qayb qaadato, iyaduna hawraarsan bay tiri. hase ahaatee haddiiba cayaartii saluug baa ka galay. waxay aragtay bahallo kale oo aan si wanaagsan goobta ugu jirin una cayaarayn. dabadeed waxay goosatay iyaduna inta ay hagari meesha ka muuqato inaysan isdaalin, taasoo lagu dareemay. gorayo cawshaa waxaa dheerteeda taagnaa haldhaa damman oo isagu si hagar la'aana sacabada isugu garaacayay una jaamaynayay. abbaar kadib ayuu arkay gorayo cawsha dhinaciisa taagani inaysan cayaarta sidiisa daacad uga ahayn. markaas buu ku yidhi, maxaad cayaarta u hakranaysaa? ama maad si wanaagsan wax uga tuntid ama isaga baxdid? se waxay ku jawaabtay, cayaartu haddii ay hagaagtana lug baa iigu jirta, haddii kalena waan kala baxaya. dabadeedna waxay noqotay maahmaahmaanka qofka ku soo dhacda markuu arko ruux ka lagu dambeedinaya arrin uu wax ku leeyahay, isaga oo aan daacad ka ahayn ama sida wax u socdaan aan ku jecsanayn amaba isbeddel dambe oo waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da. maantana waa raha iyo laba hawraarood oo isaga loo saariyey, dabadeedna mahmaahda soomaalida ka mid noqday. dhegaystayaal, rahu wuxuu ka mid yahay naflayda biyaha iyo dhulka qalalan labadaba ku noolaan karta ee biribiyoodka aynu dhowaanta u bixinay. had iyo jeer wuxuu aana u yahay ballida iyo meelaha lamidka ah ee biyo fariisiga ah. xilliga uu dhulku rooban yahay ayuu si muuqata u soo banbaxaa, markaasoo reer miyigu ay jiritaankiisa aad u dareemaan. xilliyadaas uu geyigu aaranka yahay ayaa rahu wuxuu ku caan yahay ci aan kala joogsi lahayn iyo dhawaaq meelo fogfog laga maqlo oo inuu reerayn daaran yahay loo fili karo. dhasalaaliq iyo biirawaaqle ayuu ku wada ekeeyaa dhammaan degaanka uu maantaa ku sugan yahay, iyada oo ay hubaal tahay xaaladda wanaagsan ee uu ku jiro inuu ku faraxsan yahay. had iyo jeer waxaa cidiisa laga maqlaa meel roobkii gugu ku gabdhamay ama kii dayrtu uu si wacan u maansheeyey. tusaale ahaan, hoga kaliileed xilli ay tahay ayay laba reer miyi ahi meel hebla ku kulmi jireen. labaduba waa sadcaal, way iswaraysan jireen. mid waliba dhulkii uu soo maray ayuu ka kale uga warrami jiray.
markaasoo kalena waxyaalihii ay wax iska weydiin jireen waxaa u badnaan jiray hilaacyadii berheble ka muuqanayay inay biyo dhigeen iyo in kale labada midkood ayaa kolkaa wuxuu ku jawaabi jiray shalay iyo xalayba dhulkii aan anigu soo maray meel walba raha ayaa jiilahaa. cida rahu waa astaan barwaaqo. dhaqan ahaan soomaalidii reer miyiga ahaydi waa markii ay ka raysan jireen daalkii iyo qorax dheerihii kululaa ee ay soo mareen. dhinaca kalese waa marka ay colaaduhu dhexdooda ka aloosmi jireen ee nin waliba kii uu ku lahaa uu aanadiisa ka doonan jiray. raha cidiisa ayaa xusuusin jirtay hebel waa hore la dilay oo xabaashii ku xasilila saa weli looma aarina. arrintaas iyada ah waxaa gabay ku daray allah u naxariistay gabyaagii la odhan jiray cabdulqaadir xilsi siyaad oo yamyam loo yiqiin. waa xamar iyo 83 dalka meel walba dagaal baa ka oogan. koonfurta waqooyiga iyo bartamaha jabhada hubaysan oo toltol lagu dhisay ayaa meel walba laga abaabulayaa. ciidamada la dagaal gelinaya waa dhallinyaradii reer miyiga ahayd. kuwa hubka iyo saadka u dirayaana waa reer magaalkii iyagu wada joogay. waa wasiiradii xukuumadda intoodii badnayd iyo shaqaalihii sarsare ee dowladda. maalinba makhaayad heerka koowaad ah ayaa laga wada qadaynayaa. minqax iyo maad baa lagu jiraa. dhiigguna miyiga waa qulqulaya. nimanku waa is og yihiin waase isu qoslayaan. waa goortuu inta yaabay uu yemyamtiriyey weji raafgomaday gabaygiisii uu u bixiyey ee uu ku xusaayay laba wajiiranimadii ay raggaasi isla hor fadhiyeen. hubka iyo lacagta dowladda sidii ay reer miyiga ugu baabi'inayeen iyo jeerka ay diraraani inuu yahay jeerka ay raha cidiisa maqlaan oo qura. gabaygaasoo dheer tuduc ka mid ah ayuu yemyam ku yidhi weji raafgomadayoon lahayn riintii naxariis leh iyo madax rasaas iyo naxdina ba' laysu ruuxayaaye rumagoodu waa been afkuna raashin kala diidi. raacatadu dugaag kama duwana roob markuu da'o ramadkiiyo hareerada dhashaa laga rakaataaye rida caanaheeda ku dira roonihii xigay. goortii rah qaylshaa warmaha laysku rogayaaye haddii aan abaar lagu rushayn riiqda dhaqankooda rajo lagama qabo nabad inay rayska ku cunaan. kol walbase rahu raaxadaas kuma jiro. aaranka mooye abaaruhu waa u daran yihiin waana u nugul yahay. sidaa darteed markay jiraalladu soo galaan rahu wuu isnabaa. geedaha ayuu isku maraa. badanaase wuxuu isku qariyaa meelaha uu qoyaanku weli ku dambeeyo. halkaas ayuu milicda kaga gabadaa ilaa roobabka gugu ama kuwa dayrtu ay ka da'ayaanoo jidhaan waliba ay waranto. waxaa haddaba jira laba hawraarood oo ay soomaalidu ku maahmaahdo labadana ay raha u saariso. mahmaahda hore waxay ku saabsan tahay xidhiidhka ka dhaxeeya raha iyo biyaha oo ah noolo waliba wax aanu ka maarmi karin laguna wada dhaqan yahay. sidaan soo aragnay bahalkaa tabarta yari wuxuu ugu horreeyaa inta biyaha u baahata mar walba oo ay suuragal tahayna wuu ku dhex jiraa. ha yeeshee sida muuqata abaaldhacuna wuxuu ka mid yahay tilmaamihiisa. taasna waxaa laga garan karaa mahmaahda ay soomaalidu ka sheegto ee ah hadday biyo khayr leeyihiin dabadayda ha laga dayo, oo ula jeedo hadday biyuhu waxtar leeyihiin aniga ayaa ku naaxi lahaayo aniga ayaa ku weynaan lahaa. abaaldhaca ka sokow dabeecadaha kale ee raha laga sheego waxaa ka mid ah maangaabnida, taasoo u horseeda inuu si fudud u halmaamo dhibta uu jiiraallada soo maro. haddiiba biyaha ugu horreeya markuu dabaasho ayaa sida la yidhi wuxuu iloobaa oonkii iyo diyahaalkii uu kolka dhow ka soo baxay. haddaba diraac kulul xilli ay ahaydoo noolo waliba uu nafta u yaabay ayuu rah badani baktiyey. tiro yar ayaa ifkii kaga hadhay. maalintii dambe ayaa mid diifaysan oo naftu ku daba yar tahay wuxuu u tegay abeeso ay daris ahaayeen. wuxuu u doontay amaah biyood isaga oo ugu ballan qaaday inuu u gudi doono dhibicda ugu horraysa ee dayrta. taana way ka yeeshay. rahii oo biyihii amaahda ahaa la soo siiyey aadna ugu faraxsan ayaa ku soo noqday rugtii uu joogi jiray. si fiican ayuu ugu naalooday. ilaa xilligii roobda-a ayuu maalin baqaar ka cabbaayey kuna qubaysanayay. waagii dambe dayrtii haddii la gaarayo meel walba ay roobabkii ka da'een ayay abeesadii biyaha ku lahaydi rahii u timid kuna tiri, rahow
wakhtigii ballanteenna waa la gaaray amaahdii aan kugu lahaa ii gud ha yeeshee codsigaas rahii dan uma gelin kama uu jawaabin waxayba uga caddahay dabaal biirawaaqla iyo kolba dhan ubood abeesadii daynta ku lahayd ayaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba ku soo noqnoqotay yaase u soo jeeda dabadeed kol dambe oo ay daashay ayuu rihii cayaartii hakiyey oo xaggeedii u soo jeestay sidii wax kale looga sugaayey ayuu yidhi abeesooy maanta oo kale cidna lama hadlo taas oo la xusuusto markii la arko ruux maan gaabanoo calooshi la cayaara qofuu abaaldhacu dabeecad u yahay sida rahana u dhaqmaaya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo